السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أقوان دون channel وعشر كيني سدحاد أي مادة C programming language وحينو قهد لنا variables and data types si fudud variable haddaynu u qeexno waxaan oran karnaa waa data holder oo macnaheedu tahay waxa daatada inoo haya ama value qiimahan u dhiibano inoo save gareynaya. Waxa kaloo muhiim ah inaan ogaano variable-ka waxa uu leeyahay laba shay waxayna kala yihiin data type iyo variable name. Tusaale kale markaan dhahno int oo u taagan integer waxa ay noqonaysaa data type-ka markaan adeegsanayno. kadib waxaan leenahay age oo ah variable-ka magaciisa ama name of the variable. kadib waxaan leenahay semicolon. intaa markaan sameyno waxaan declare gareynaynaa age-ka. kadib waxaad tiraahdaa age hala mid noqoto 21. kadib waxaad ku soo xiraysaa semicolon. intaa markaan sameyno hadda waxaan u baahanahay marka inaan soo daabacno ama soo print gareyno da'da. kadib waxaan dhahaynaa print f waxaad furtaa double quotation. waxaan leenahay marka the age is kadib waxaan dhahaynaa percentage d. intaa markaan dhahno waxaad tiraahdaa comma waxaan u dhiibaynaa age-ka ama argumentigaan u baahanay inaan soo print gareyno oo ah age. waxaad ku soo xirtaa semicolon. bal aynu kicino waxa aynu sameynay. saa arkaysaan halkaa waxaa inooga muuqata the age is 21. da'da waa 21. waxaa jira marka rule la adeegsado marka la declare gareynayo ama marka la qeexayo variable-ka oo ah in variable-ka uusan ka bilaabanin wax digit ah ama tiro. tusaale kale halkan waxaan adeegsanay age. haddaan ku bilaawno number 1 oo kale ama number 2 koodka inooma kici doono oo waxa uu inoo soo saari doonaa error. sidoo kale variable-ka uma dhaxayn karo wax space ah oo aan oola jeedno. tusaale kale haddaan dhaho my age space-ka haddaan u dhaxaysiiyo koodka wuxuu inoo soo daabici doonaa error. marka looma baahna inaad adeegsato wax space ah. sidoo kale calaamadda sign dollar-ka waa mamnuuc inaad adeegsato markaad isticmaalayso ama declare gareynayso variable-ka oo waxa kuu soo bixi doona error. rule-ka ugu dambeeyana waxaa masti ah inaadan isticmaalin function ama main function-ka. tusaale oo kale haddaan dhaho int booska age aan ku bedelo main waxaa imaan doona error oo koodka markaan compile gareynayno ama aan kicinayno compiler-ka wuxuu ku wareeri doonaa main function-ka aan adeegsanayno iyo variable-ka. marka waxaa muhiim ah inaad si fiican isaga fiiriso ruleskaas. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ogaano data typeska kale ee jira sida float data type oo ah marka la adeegsanayo tiro decimal ama tiro jajab ah. tusaale kale waxaan leenahay by hala mid noqoto ama by is equal 3.14. tirada marka tiro sax ma ah waa tiro jajab. sidoo kale waxaa jira char ama car saa ugu dhawaaqdaba oo laga soo gaabiyay character. tusaale kale character waxa la adeegsadaa marka sida xarfaha la daawacayo kale sida a oo kale b iyo waxyaabo kale oo lamid ah oo oran karto my underscore car is equal. waxaa kaloo muhiim ah halkan quotation waxaa adeegsan doontaa single quotation marka aad xarfaha daawacayso. kadib waxaad tiraahdaa a. data type-ka kale ugu dambeeyana waa double oo aan oran karno big underscore by oo lamid ah 3.14
14 22 32 ilaa tirada ay kasoo noqonayso kale. waan filayaa in casharkan wax badan ka faa'iideen kana hesheen. intaan ku kulmi doona casharkan casharka xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.